10kii Luulyo sanadkii 2016, laba nin oo xiran maaskaro iyo koofidaha kalluumeysiga ayaa soo galaya albaabka hore ee bangiga TP. Mid ka mid ah ayaa ilaalinaya albaabka, halka kalena gudaha u galay. Wuxuu istaagay mashiinka ATM-ka, ma isticmaalayo kaadhkiisa si uu lacag ula baxo, mana isku dayayo inuu qarxiyo mashiinka. Kaliya halka ayuu taagan yahay. Intaa kadib waxaa dhacay wax la yaab leh. Mashiinka ATM-ka ayaa bilaabay inuu dibadda u soo saaro lacagtii mashiinka gudihiisa ku jirtay mid mid. Hadda ninkan waxa kaliya uu sameynayo waa in lacagtaas uu ku urursado boorso uu watay. Markii uu yimid goobta qof si uu lacag ula baxo, isla markiiba way baxeen. Qofkii ayaa arkay lacagtii ay ka tageen oo daadsan mashiinka hortiisa. Xilliga ay labada nin urursanayeen lacagta, 20 xarumood oo kale ee isla bangigan ayaa si isku mid ah wax looga dhacay. Tani waa hal qayb ka mid ah weerar weyn oo gilgilay nidaam maaliyadeedka caalamka. In ka badan 100 bangi oo ku yaal in ka badan 30 waddan ayaa laga xaday lacag dhan 1 bilyan. Waa mid ka mid ah tuuganimadii ugu weyneed ee soo abaabuleen kooxda hackers-ka ee loo yaqaan Carbonc. Waxaa hogaamiyay hal maskax oo aad u xeeldheer, laakiin habeenkan TP asaga iyo kooxdiisu waxay sameeyeen qalad weyn, mid ay ka qomameyn doonaan. Waxaan u maleynayaa hackersku inay haystaan baasweerka sirta ah ee maamulka. Markaa waqtigaas waxaan ogaanay inay la socdeen dhaqdhaqaaqeena. Waxay ahayd wax aad u adag in gacanta lagu dhigo, maadaama uu ahaa kaliya code program. Waxa run ah arrimaha hackerskan waa la shaaciyay, laakiin bangiyada la dhacay iyo shaqaalihii ku lugta lahaa lama shaacinin. Marka si aan sheekadan u fahanno, waxaan adeegsan doonaa nin la yiraahdo Maxine. Waa bishii Abriil 8, maalin caadi ah oo Talaado ah. Wuxuu ka shaqeeyaa bangi ku yaal Ukraine. Waa shaqaale aad loo qadariyo, laakiin caado aan fiicnayn ayuu leeyahay oo mar walba muusan cusboonaysiin jirin ama update muusan ku samayn jirin kombiyuutarkiisa. Maxine asagoo qaxwihiisa cabaya oo xafiiskiisa fadhiya oo ka fikiraya gabadha ka shaqeysa qaybta soo dhaweynta xafiiskiisa ee uu aad u jeclaa, laakiin uu ka baqi jiray inuu u sheegto. Email ayaa u soo dhacay. Emailkan wuxuu ka socdaa saaxiibkiisa shaqada. Emailka waxaa ku lifaaqan dukumiinti muhiim ah. Cinwaanka ayaa u qornay sida Compliance with Federal Law 115. Waxay ula muuqatay mid muhiim ah, sidaa darteedna wuu furay, wuuna iska xiray markuu dhammeeyay. Wuxuuna sii watay shaqadiisii. Dhowr bilood kadib wuxuu ka qayb galay shir. Maamulkiisu wuxuu ula muuqdaa mid aad u walwalsan. Qaar ka mid ah mashiinada ATM-ka ee bangigooda ayaa bilaabay inay dibadda u soo saaraan lacagta saacad ka mid ah saacadaha maalinta. Maamulihii ayaa yidhi arrinkan waxay u muuqataa in qof kasta oo si fudud u qaadan kara lacagta. Maamulaha wuxuu yidhi bangiga waxaa laga yaabaa inuu dhibano u yahay weerar dhanka internetka. Wuxuuna ku amray shaqaalaha tilaabo qaadaan. Isla markiiba waxay bilaabeen inay shaqaaleysiiyaan khabiir ka socda Kaspersky. Kani waa York, waa khabiir u shaqeeyo Kaspersky. Wuxuu ka mid ahaa kooxdii baaritaan. Wuxuu durba baaritaan kula dhaqaaqay hadiskiyadii mashiinyadii la jabsaday, laakiin waxba kama helin wax raadraac ah. Dhowr bilood kadib, York waa la soo wacay xilli saqdhex ah 3 habeenimo. Waxaa soo wacay maamulaha bangi weyn oo Ruush ahaa. Wuxuu ku yidhi York waa inay si degdeg ah ula soo xiriiraan farsamayaqaanka bangiga. Markii uu goobta soo gaaray, wuxuu arkay farsamayaqaankii oo argagaxsan oo kombiyuutarkiisa hor fadhiyo. Wuxuu weydiiyey maxaa dhacay. Farsamayaqaankii bangiga ayaa ku jawaabay qof ayaa la wareegay maamulidda serfarka weyn, taasoo ah waxaa la maamuli karaa wax kasta oo hoos yimaada. Wuxuuna u raaciyay in hackerka xog ku saabsan bangiga oo u dirayo Shiinaha. Khabiirkii ka socda Kaspersky markuu intaa maqlay, durbaba wuxuu bilaabay inuu ka dhex raadiyo virus kombiyuutarka dhexdiisa iyo shabakadda la jabsaday. Ugu dambeyntii, sidoo baaritaan ugu waday kombiyuutarka ay lahaayeen bangiga, wuxuu ku arkay software ku ogolaanaya inaad maamusho kombiyuutarka yaal meel kaa fog adigoonan ka dhaqaaqin goobtaada. Waa waxa afka qalaad loogu yeero remote control access. Wuxuu isweydiiyey su'aal: ma laga yaabaa in hackerka isla waqtigan uu daawanayo shaashadda? Fikrad ayuu helay. Wuxuu furay Microsoft Word, wuxuuna ku qoray hello oo Ruush ah. Waxay sugeen dhowr daqiiqo, waxba ma dhicin. Dabadeed, si lama filaan ah, flash kombiyuutarka ayaa dhaqaaqday oo xarfo ayaa ka soo muuqday shaashadda, oo micnaheedu yahay hackerkii ayaa soo jawaabay oo wuxuu yidhi nama qaban doontaan oo Ruush ah.
haddaba shaqaalihii ka socday Kaspersky ayaa mar labaad jawaabay oo wuxuu yidhi xaqiiqdii waa idin qaban doonaa. Mar labaad hakarkii ayaa hadlay oo yidhi mana qaban doontaan. Ugu dambeyntii Kaspersky ninkii ka socday wuxuu helay fayraskii. Fayraskan wuxuu ahaa Garbor Trojan oo fayraska magaciisa wuxuu ahay Anonov, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu ugu yeero Carbonok. Sidaa darteed dhacdadan ka dhacday Ruushka, York iyo saaxiibadiisii waxay siisay xog ku saabsan waxa socda, waxayna dib ula xiriireen mashiinadii ATM-ka ee la jabsaday ee Ukraine. Hadda waxay shaaca ka qaadeen habka ay u shaqeeyaan kooxdan la dhaho Carbonok. Aanu dib u noqono. Kan waa mid ka mid ah jabsigii Carbonok. Mar kale waa bishii Abriil 8, 2014 waxay hore ula wareegeen emailka Sergeant, laakiin waxay rabeen inay helaan emailka Maxine. Sidaa darteed waxay u direen email virus wata. Si u eego emailka wuxuu bilaabay inuu soo dejiyo dukumentigii asigoo isticmaalaya Microsoft Word. Markii uu soo dejiyey viruskii ayaa wuxuu galay kombiyuutarkiisii. Fayraskaas sidaa hore usoo sheegnay waa mid u ogolaanayo hakarka inuu ka maamulo kombiyuutarada asigoonan ka tagin goobtiisa. Tallaabada xigta waa inuu helo baasweerka lagu galo shabakada oo dhan, wuuna og yahay sida loo sameeyo. Oo hakarkii wuxuu kusoo dejiyey kombiyuutarka Maxine software ka dhigaya in kombiyuutarka uu yara gaabiyo, taasoo Maxine ka ereysiin jirtay inta uusan imaan farsamayaqaanka kombiyuutarka. Hakarkii wuxuu kombiyuutarka kusoo dejiyey software kaasoo u ogolaanayo inuu u keydiyo wax walba kombiyuutarka lagu qoro. Hadda ninkii IT-ga ah wuxuu bilaabay baaritaan. Marka Maxine ayuu weydiiyey baasweerka. Maxine baasweerkii ayuu geliyey kombiyuutarka, dambe u sahashay hakarka inuu ogaado baasweerka lagu galo kombiyuutarka Maxine, maadaama Maxine uu ahaa maamulaha bangiga. Kadibna isla nambarkii wuxuu ku eegay shabakada oo waaba isla nambarka. Hadda wuxuu raadi karaa kombiyuutarka ku jira shabakada oo xakamaysa ATM-yada, laakiin isla markiiba muusan weerarin. Markuu si fiican u fahmay siday u shaqeeyaan ayuu bilaabay xadista lacagta. Kooxda Carbonok waxay la yimaadeen 3 hab oo kala duwan. Hab ka mid ah hababkaas waa inay lacag ka wareejiyaan akoonnada macaamiilada ay u wareejiyaan akoonnadooda gaarka ah. Si aysan shaki u galin, waxay marka hore kor u qaadaan lacagta akoonnada macaamiil, taasoo ka dhigaysa haraaga guud ee macaamilka mid aan isbedelin. Tusaale, haddii macaamilkan uu lahaa $2,000, waxay ka dhigayaan $10,000, kadibna $8,000 ayay qaadanayaan, maadaama bangiyada ay xisaabta eegaan 10 saac kastaba mar. Habka labaad waa inay la wareegaan ATM gaar ah eena ka dhigaan mashiinka mid lacagta dibadda usoo saara. Goobtaasna waxaa jooga dad la kiraysto oo ka tirsan Moldovan Mafia si ay lacagta uga soo qaadaan ATM-yadaas gaarka ah ay ugu soo diraan madaxdooda, kadibna waxaa la siiyaa qayb yar oo ka mid ah lacagta. Midka saddexaadna waa midka ugu dhibka badan oo hackers-ka waxay sameeyeen dhowr akoon oo ay ku qoreen magacyada dadka lacagta u soo aroorin doono oo ay ku jiraan kaararka debit card-ka. Kaararkan debit card-ka sidoo badan waa akoomo si toos ah ugu xiran bangi account. Intaa kadib waxay hubinayaan in 3 akoon ay ku jirto lacag isku mid ah, tusaale $3 akoon walba. Kadibna waxay cusboonaysiinayaan xogta bangiga ayagoo ka dhigaya koon walba 1 milyan iyo 1 milyan iyo 1 milyan. Kadibna waxay awood u leeyihiin inay isticmaalaan kaararkooda debitka si ay lacagta ula soo baxaan ayadoonan wax shaki ah ka imaanin dhanka bangiga. Laakiin natiijada ka dhalanaysa cusboonaysiinta xogta bangiga ee keedsan waa qaar ka mid ah macaamiishii bangiga waxay si mafilaan ah u noqonayaan milyaneero. Markii kooxda Kaspersky ka socotay ay si fiican u fahmeen hababka kooxda Carbonok ku shaqeyso,